bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhurnimo ee reediyo kulmiye qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weerarada al-shabaab ee muqdisho oo la ogaaday inaysan lahayn bartilmaameed gaar ah iyo faahfaahin laga bixiyey sida loo fuliyey qaraxyo iyo daliil badan al-shabaab oo nabadoon ku dilay bartamaha degmada buur-hakaba ee gobolka baay wadooyinka magaalada beledweyne oo maanta dib loo furay kadib xal laga gaaray qayb ka mid ah xiisadihii maalmahan ka taagnaa halkaasi boob lagu hayo goobaha ganacsi ee soomaalida oo maanta ka socda dalka koonfur afrika gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ee somalilan uu ku hanjabay in ay gacanta ku dhigi doonaan magaalada garowe madaxweynihii suudaan oo ka soo muuqday maxkamad ku taala qartuum iyo faahfaahinno ka soo baxaya qarax ismidaamin ah oo ka dhacay dalka afghanistaan war bal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba mar kale ismaqal wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal waa 14 bisha 6 ee Juun sanadka 2019 cali ibraahim cabdulaahi ayaa qodobadaas aad dhegaysateen soo saaray faadimo abuukar cabdi iyo farxiye xuseen cali ayaa soo jeedinaya markana u diyaar garoowa warkii oo faahfaahsan weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan magaalada muqdisho ayaa la ogaaday inaysan lahayn bartilmaameed gaar ah iyadoona faahfaahin laga bixiyey sida loo fuliyey qaraxyo iyo dilal badan cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya al-shabaab waxay ka mid yihiin kooxa dunidan ka fuliya weeraro argagax leh oo isugu jira qaraxyo dad badan galaafta iyo dilalka dad ay birimageedo ugu badan yihiin waxaana si lamid ah kooxaha kale ee ay la midka yihiin adkaata in muddo kooban lagu ogaado sida ay u fuliyaan qaraxyada iyo dilalka qaar oo u dhaca in gawaari dadka lagu hor jaro qoraallo iyo buugaag laga diyaariyey al-shabaab iyo kuwa la midka ah waxaa lagu sheegay in aysan dhammaan doonin xogaha laga helo sanad kasta iyo mar kasta sida ay u geysteen falalka ay qaraxyada ka mid yihiin ee hore u dhacay barnaamij loogu magacdaray gungaar xalayna ka baxay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay sida shabaab u geysteen 7 qarax iyo 2 dhacdo oo lagu rasaaseeyey gawaari ay dad rayd ah saarnaayeen dhammaan falalkaasina hal nin ayaa inta badan shabaab uga mas-uul ahaa canshuur cusmaan abuukar oo haatan ku jira gacanta dowladda soomaaliya kuna xukuman dil toogasho ah ayaa laga helay xogta sida ay dhacdooyinkaasi u dhaceen isaga uuna mas-uulka ka ahaa inkasta oo nin kale lala xukumay lalana waraystay haddana isaga ayaa inta badan mas-uuliyadda dhacdooyinkaasi lahaa sida uu waraysiga ku sheegay iyadoo ay dadka qaar aaminsanaayeen in shabaab u dagaalamaan aqoon diin waxna u qarxiyaan ayaa canshuur oo dhowr qarax geystay waxa uu yidhi qiimiya ka dhashay waxa uu baran ciidan ana ugu weynaa marka adiga xoolay waxa iska daba orod jiray yaraantii dugsi quraan iyo iskuul midna ma dhiganayo meeshan meel miya leed meel laga helo ma iskuul ma laga helo dugsi quraan xoolada canshuur ayaa bishii 8aad ee 2017 wuxuu mas'uul ka ahaa gacantiisana ku geystay dhacdadii lagu rasaaseeyay gaari ay dad shacab ah saarnaayeen oo ka dhacay agagaarka X Digfeer ayna saarnaayeen dad u badnaa hal qoys mana ahayn dhacdadaasi mid bartilmaameed ah oo waxa ay iskaga fureen un rasaas isgoyskan oo Digfeer hortiisa oo dhinacan banaadir marka laga imaado Digfeer marka ka baxdo oo meeshan carwooyinka inta la gaaro ka soo keenay isgoyskii yar meesha noo saan ugu leexanay gaari harto gacan la anaga hor imaadaniyo tan waa weyn waa tan ku nasiibtana dhaaniyo tan ma laga fahmo watan iyo lagu jira maanta tan anaga hor imaad marka ku bilaawniyo waa ku shubnaadiye ninkii baad hal qasmo ku ridi waa ka cararna markaas ka baxsan waraayay waa shaqada waa galnay ma gashanaa soo baxa ma iska baxnay marka meelaha siimay uu soo waray nin waxba ma qabanin niman caruurad ma ka dhigtaan oo dhaaniyo ma yaro leed iska socod aad eber ka dhigtaan oo dhaaniyo adiga waxaan asma goor xunday markii ana gaari bensel aad aragtaan marba ku qabsado oo dhaaniyo hada xaraniyo shaqada noo dirniyo ma fahmin na aad marin askari waray waxa dimalaade soo bax waa qaribintaan umada weerar kale ayay canshuur iyo koox la socotay bishii 9aad ee isla 2017 ku fuliyeen gaari kale oo xamarweyne marayay
waxaana gaarigaasi ay rasaasayeen ku geeriyooday xoghayihii ururka haweenka qaranka iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururkaasi waxayna u dileen keliya in ay ula muuqatay gaari oo qof mas-uul ah saaran yahay gaari saarif oo baraad camal loo malay uu sama aragnay waray kan ku qabsan maahan adiga barxadan yaasiin maal dhamaan agaarkan ceelgaabta meel dhawaad ay joognaay marka waa daba kan isgoyska fiiran ma ku galnaba waa mid meel waa daba kan horta cabaar inaga horeysay baash waa ka daba sheel raysan marka daba tagni isgoyska marka saan isii leexanaysay leexas leeyay ku shumnay loo kala asad dhignay isla marnimo wadi waa shaqada waa galnay waa qasqad ku jir maanta sadii dadku jiri wax badda waxaan u maqlay waa gashan waa ka cararmash ka cararnay isla marnimo iska baxsanay toos soo bax markaan ma ka soo day sidii uu baanaaday marka u tagnay on baaniyo naagta habar iyo wiilkeeda ku dhintay oo dhahay habar iyo darwal wax noocaas oo sheegay qaraxyadii ka kala dhacay hoteelada Naasahblood laba saxafi xarunta degmada Howlwadaag agagaarka tiyaatarka daljirka Dahsoon iyo sidoo kale iyo qaraxyo kale ayuu canshuurka la wareystay oo ahaa sahmiye iyo inuu kaxeeyo gawaari qaar qaraxyo lagu raray qaarna rag hubaysan oo qarax kadib weerarka loogu talagalay dhacdooyinka yaabka leh waxaa ka mid ah inuu ninkan weerarka hotel Naasahblood laba ee dhacay 2017 bishii Oktoobar 2020 u qorshaysneed inuu isku qarxiyo dadka u gurmanaya intii qaraxii koowaad wax ku noqotay hase ahaatee gaariga ayaa u socon waayay sidaasi ayuuna kaga baaqsaday qaraxii oo gaariga uu isku qarxin lahaa ayaa keligii qarxay isagana uu baxsaday qaraxyada maalintaas iyo weerarkii gudaha hotelka Naasahblood laba lagu galay ayuuna mas'uulka ahaa social reanne qamaasinta idid ku daadiniyo idid warka ku daadiyay waa galaan marka galaan ana marka go'aankii wuxuu ahaa la soo sharaxay macna markii qamaasinta idiji ina meesha ka laabto cabaar meelahaas ku soo boojay oo gurmadkii iyo waxaas markay yimaadaan aan hadal ku soo laabto isku qarxiyo toos u bacday ku qoranaadii markaas dhaaniyo qamaasinta marka daadiyay marka anigu gaari waa istakaatay uu socon way qashin gaariga macna aan wataani uu socon waayay marshado yaatar la socona bis hore dhan waa diiday qad rag iga degan xabad way socdaa baash waa isku lismaysa adiga gaariga uu socon waayay doctorka ku dhufto doctor wani rag baash way socotaan todo ninka soo diriyo hagaayo waa amirkana wani baash waa socotaan dhan faan ragin meesha way galeen an gaariga uga halaago iscun laay ilda iska jooga marka meeshaan asay isugu halaaniyo waa cadibili ugu horeeyo kuma maalan qabsana taas miya wuxuu gaariga soo degniyo gaariga soo meesha ciidana joogniyo ma leeqata radii soo degniyo ma ku qornaan soo degadi gaariga marka yaa tara waxay uga qaadi yaa tara soo ugu socday banaanka u bixi xagga geemeesha taalada agteeda marti meesha geemeesha ka geey fataq waa ka dagay marka ka sii daayay sidii martii ay ku dhamaatay oo baxsaday qaraxyadii hotel saxafi ee dhacay bishii November ee sanadkii hore 2017 iyo qarax kale oo xarunta degmada Howlwadaag lagu weeraray ayuu isla ninkan ka dambeeyay dhammaanna waa isku mid sida uu abaabulay waliba wuxuu qaraxyadan geystay isaga oo madaxda al-shabaab u dalacsiiyeen sidii uu u gamaaday dadkii rayidka ahaa ayaan horey u soo sheegnay isaga ayaana sidaasi waraysiga ku sheegay waa uu sii waday abaabulka qaraxyada iyo weerarada oo mar kale qaraxii magaalada Gilgilay 22 bishii December 2017 ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka iyo mid isla maalintaasi ka dhacay daljirka Dahsoon ayuu u ahaa qofkii sahmiyay kana dambeeyay balse qaraxyada maalintaasi ayaa noqday kuwii ugu dambeeyay ee uu geysto oo durba maalinta waxaa gacanta ku dhigay ciidamada amniga isaga iyo nin kale oo haatan maxkamaddu kuwada xukuntay dil toogasho ah canshuur ayaa marka la isku daro tirada dadka ku dhintay weerarada uu waraysiga ku sheegay inuu u ahaa sahmiye iyo kuwa uu geystayba waxay ka badan yihiin 200 oo qof dhaawacuna waa tiro kale oo intaasi ka badan maantase waa la hayaa oo waa suga dil toogasho ah oo ay maxkamadda ciidamada midda darajada koowaad iyo tan sareba kuwada xukumeen
sida ay sheegayaan wararka laga helayo degmada buuraha kabe ee gobolka baay al-shabaab ayaa la sheegay in nin nabadoon ah ay ku dileen bartamaha degmadaasi. nabadoonka la dila ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Mukhtaar Subagle, waxa uuna ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka Koonfur Galbeed. warbaahinta al-shabaab ayaa sheegtay in ay beegsadeen nabadoonka. ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada buuraha kabe ee gobolka baay. wararka ka imaanaya magaalada beledweyne waxay sheegayaan in maanta dib loo furay wadooyinkii magaaladaasi. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maanta la isku afgartay in xal laga gaaro qayb ka mid ah xiisadii ka taagneyd magaalada beledweyne. maxamed cabdi waare madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kulamo gooni ah waxa uu la qaatay odayaasha iyo waxgaradka magaalada, gaar ahaan ehelada marxuumka lagu dilay deegaanka Kalabeer ee gobolka hiiraan kaasi oo lagu magacaabi jiray Taliya Macow. madaxweyne waare ayaa waxaa la sheegay in odayaasha uu ku qanciyay in xiisada la dejiyo lagana wada shaqeeyo nabadgelyada, isagoona u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan cadaalada loo horkeeni doono ciddii ka dambeysay dilka taliyaha. boob lagu hayo goobaha ganacsiga ee Soomaalida ayaa maanta waxa uu ka soconayaa dalka Koonfur Afrika. arrintan ayaa waxa ay ku soo aadeysaa xilli 48 saac ee la soo dhaafay dalka Koonfur Afrika lagu dilay ganacsata Soomaaliyeed. Sharmaarka Nuur UK ayaa warkan nooga soo diray dalkaasi Koonfur Afrika. in ka badan 10 dukaamo Soomaali leedahay ayaa lagu boobay xaafadaha ku dhow magaalada Cape Town. xaafadda lagu magacaabo Central oo 25 kiiloomitir u jirta magaalada Cape Town ayaa waxa lagu boobay 7 dukaan, waxaana dhammaan xiran dukaaminka ku yaala xaafadaha sidoo saas ugu waramay Umar Ali Riiro oo kamid ah dadkii saaka dukaaminka halkaas lagu boobay. ninka ilaa kuma dara dukaanka caaway markii uu mid laga naqday ee magaalada loo soo noqday oo dukaanka jibis loo saaran ka caro iyo wuxuu markaa waxay maxaa dhacay ila ma hadlin loo biska baxeena Abdullah horuga baxay ana cabaar meela tuuliye dawaaba intii badisho ma jiraan wax khasaaro nafeed oo ka soo gaaray muwaadiniinta Soomaaliyeed boobkaasi. isku soo wada duwo dilalka dhacay boobka Soomaaliyeed wadankan ku nool ayaa ah wax joogta oo cid maare u yeeshay aanay jirin ilaa Yemenka. Sharmaarka Nuur UK Kenen South Africa. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ee Somaliland ayaa ku hanjabay in ay gacanta ku dhigi doonaan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag ay ka taagneed xiisad u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland. Asma Maxamed Jaamac ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ee Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inaysan gacantooda ka bixi doonin deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in iyagoo awood ciidan adeegsanaya ay xoog ku qabsan doonaan ilaa duleedka magaalada Garowe ee gobolka Nugaal. gudoomiye Faysal waxa uu sheegay in ciidamo ka tirsan Puntland ay marmarka qaar madaafiic ay ku soo ridaan ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolka Sool iyo Sanaag. sidoo kale gudoomiye Faysal ayaa waxa uu xuseynay Somaliland mar walba diyaar u tahay in si nabdoon loola noolaado. kuwana waxa weeyaan waa in propaganda waxa tusaynayaan Somaliland nabad ma waa propaganda, laakiin waxay kula tahay in shakhsiyaad yar oo Garowe jooga dhaqayar soo turtura inay Soomaaliya wax yeeliyaan. waa propaganda war balayna inay waxay tusayaan inay jiraan markaa waxa ay dadka buubuuninaya Soomaaliya xitaa u babacday kale. maanta dib waxayna ciidanka Soomaaliya ugu xoog weyn badanaa inagoo shabada ayaynu dawladii weyna jibin oo badal inaga hayso oo berbera inaga hayso. maanta waddanka isku furan yahay 27 sano jirna ayaa leeyahay waxba la soo turturay. waddan ku turturi jiray Ethiopia in jabada u sameyn jiray waxba noqon jiray. kuwana ka silid haday joogsan waayaan inagu marka dambe deegar weynu tagi oo qarnaynu tagi meelaha arrin ka bilaabaya. ana wila ilaa imkan nabad baan jecelahay oo arrin bixinaa nabad baan doonayna, laakiin haday turtureeyo halka ka soo bilaabmayso inuu tagi taasaan ku balan ku qaad.
ciidamo kala taabacsan Somaliland iyo Puntland ayaa xilligan waxa ay isku hor fadhiyaan deegaano ka kala tirsan gobolka Sool iyo Sanaag iyagoona marmarka qaar ay madaafiic isweydaarsanayaan taasina waxa ay cabsi gelisay shacabka ku nool labada gobol Sool iyo Sanaag. warka duhur ee idaacada kulmiye ayaa dhageysanaysaan dhageystayaal akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo harsan balse markan waaxda dacwad soo oogidda guud ee dalka Suudaan ayaa maxkamadaysay madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir sida laga soo xigtay warbaahinta dawladda. madaxweyne al-Bashiir ayaa 12 bishii Abriil militariga ay xoog uga tuureen xilka kadib dibadbaxyo 4 bil ka socday dalkaasi Suudaan. wakaalada wararka ee Sunna oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan dawladda ayaa sheegtay in lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin dhaqashada lacagta madow, dhaqaalaha dalka uu ku takrifalay iyo amaro degdeg ah oo aan sharci ahayn. marka laga soo tago arintan ma jirto macluumaad kale oo faahfaahsan oo laga bixiyay xukunka al-Bashiir. hogaamiyihii hore ee Suudaan ayaa ka soo hormuuqday fagaarayaasha tan iyo markii xisbiga laga dhigay bishii May xabsiga la dhigay bishii May ayay ahayd markii loo maxkamadeeyay dambiyo ay ka mid yihiin kicin dadweyne iyo dil loo geystay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha. ugu dambeyntiina dhageystayaal nin waxyaalaha qarxa isku soo xiray ayaa waxa uu isku qarxiyay meel ka ag dhawaa gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska ee ku sugan magaalada caasimadda u ah gobolka dhaca bariga Afghanistan ee Nangarhar. qarxan ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 3 askari oo ka tirsan booliiska iyo 6 qof oo shacab ah sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka. agaasimaha waaxda caafimaadka ee magaalada Jalalabad Shucayb Sahag ayaa u sheegay warbaahinta in 13 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen. afayeenka barasabka ismaamulkaasi Ataahullah iyo yani ayaa xaqiijiyay in birtilmaameedka uu ahaa ciidanka amniga dhowr askarina uu dhaawac soo gaaray. dagaalyahanada la magac baxay dowladda islaamka ayaa mas'uuliyadda weerarkan sheegtay kadib qoraal ay soo dhigeen website-ka afkooda ku hadla ee Amaq. warkii duhurnimo dhageystayaal oo aad kala socoteen radio kulmiye duhurnimada maanta waa inaga intaa cidii isaga waxa inaga xasuusina inay dib uga daalacan karaan boggeena internetka ee radiokulmiye.com.